بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربنا داود يلا إن كهذا النوع ولبنا عن واحد بدن فلنقينه عيارته أذق ودحيسة حلالك دلكنا الصومالي يسودو كلا دلك إريتريا كلها كان كترسن ثقافة جونيور جالنج كاب سنة كان العياري يدو الصومالي نقصنا هنا كل مسوع عيارتي كلها كان dhici doona oo Eritrea la kulmi doontana uu yahay kula natiijo badan ay ku xiran tahay oo final amal uu yahay waxaan rabnaa in daawadayaashan adduunka meediina la wadaagno waxyaabaha laga filan karo kulankaas adag anagoo dhinacyo badan la hadli doona Soomaaliyana saddex kulan ay soo ciyaartay waxaan ogsoonay in kulankii ugu dambeeyay aan ciyaarnay Burundi alla kulanay inaan gool muhiim ka gaarnay gool wax baan kaga adkaanay Djibouti barbarac la galnay Uganda la kawanaga adkaadeen hadda waxaan leenahay 4 dhibcood aan leenahay kulankan hadii aan adkaano Eritrea aan dhinacooda dhulka aan dhigno 7 dhibcood ayaan tagi doonaa galabtana gool weyn ayaan rajaynaynaa dhammaan Soomaalideena waxaan rabnaa marka inaan la hadalno qaar kamid ah dadka inta ugu badan ciyaaraha Soomaalida iyo kuwa caalamka ka faalooda aadna u falanqeeya hadda qadka Skype-ka si toos waxa ugu jira Mahad Axmed Siyaad oo qof ka falanqooda dhanka ciyaarahan aad u yaqaana marka waraysa Mahad waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo maxaa laga filan karaa ciyaarta Soomaaliya iyo Eritrea u dhaxaysa ka tirsan koobka Challenge Junior Challenge Cup amba Sakafa Junior Challenge Cup waa santahay Xasan Said Maxamed Xuseen wana ku dhawahay janaalkan adduunka media marka la fiiriyo rajada guud ahaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku kala sugan gudaha dalka iyo daafaha caalamka waxa uu muuqdo wax qurux badan ay xulka qaranka ku tilaabsanayeen sanadadii ugu dambeeyay ay bixi jireen walow aan ognahay sanadadii hore ee wadanku u bixi jiray in Soomaaliya caalamku meesha inta la geeyo uu ka soo muuqan jiray balse aan natiijo keeni jirin taasi wax badan ayaa isbedelay ciyaartoy tayale ayaa xulka ku soo biiray iyadoo ciyaartoyda xataa aan ogsoonahay in meel kala duwan caalamka ka tirsan laga keenay taasina rajadii Soomaaliya ay dib u soo celisay Soomaaliya sida aan la wada socono saddex kulan ay hore u soo wada ciyaareen Djibouti ay la ciyaareen Bareeje la galeen Uganda ayada laba kaga badisay xulka qaranka Burundi kulanka ugu dambeeyay ay hal yeer kaga badiyeen waliba gool la cajiibay oo qurux badnaa ay ka dhaliyeen xulka qaranka Burundi goolkaasna waxa lagu saadaaliyay ama lagu qiimeeyay inuu la mid ah goolkii Khamis Rodriguez uu ka dhaliyay xulka qaranka Uruguay koobka adduunka Colombia ciyaareen inkastoo goolka dhawaanta iyo marka laga fiiriyo aw kan kaga dhawaa laakiin qaabka iyo xabadka sida uu saartay ay ka wada sinaayeen gool cajiib ah Soomaali gool cajiib ah marka Soomaaliya rajadeedu aad bay u fiican tahay sidoo kalena taageerayaal badan oo Soomaaliya waxay ku sugan yihiin dalka Uganda oo koobkan marti gelinayso marka taasina waxay ka saacidaysaa ciyaartoyda moral ahaan inay dhismaan iyadoo loo sacbinayo dhiirigelin haysto taas ayaa ah wax ka duwan wixii hore ciyaartoyda la kulmi jireen taasoo keentay in ay guulo aan lama filaan ama Soomaaliya wadamada ay la ciyaaraysa lama fileen ama xulku kama fileen Soomaaliya heerkan ama cadaadiskan ay saari kartaayo dhibcideeda meel bay sii dhigay jireen maanta Soomaalida dhibcideeda meel la dhigay jiray ma aha maanta Soomaaliyadan waa Soomaaliyada la yaqiin oo Soomaaliyada ee libaaxada Afrika marka Soomaaliya waxay u muuqataa inay rajo fiican leedahay kulanka marka uu imaano galabta marka ama xilliga qadada geeska Afrika kulankan ka dhacay laga ciyaari doono Soomaaliya waxay u baahan tahay galabta inay guuleysato si ay ugu gudubto semifinalka tartankan Soomaaliya marka si ay u guuleysato waxay u baahan tahay in ay ku ciyaarto kulankan inuu yahay final laakiin final oo kala u aragto inuu yahay inay koob tiba qaadayso oo kale inay Soomaaliya u ciyaarto macallinkina haduu ku soo galo shaxdi uu ku soo galay Burundi hal eber kaga badiyeen waxa muuqata in Soomaaliya ay badi karto xidigan la yiraahdo Xasaasi haduu ku soo bilaabo Soomaaliya rajo fiican
ay leedahay ajaasina lagu tilmaamaa bogbaha Soomaaliya qaabku kubadda u ciyaaray qaabku ciyaartooyda u gaarsiinay qaabku kubadda u karoosay marka la fiiriyo waan gartay ugu dambeyn mahad guusha kulli dhamaanteen ba aad baan u wada rajaynaynaa marka Soomaalida maxaa lagu baahan yahay kuwa jooga Uganda oo aan arkaynay markii Burundi la ciyaarayeen tiradooda ay jireen oo dabaaldegay garoon ku sugnaa iyo kuwa aan Uganda joogin dalka ku sugan ama dibadaha ku maqan maxaa lagu baahan yahay kaalintooda maxay tahay dhammaan inta Uganda joogta iyo inta aan joogin ku sugan dunida inteeda kale inta joogta gudaha dalka Soomaaliya dhammaan taynba xulka qaranka maanta wuxuu looga baahan yahay inaan garab istaagno taageero qalbi furan niyad wanaagsan dhiirigelin ku taageerno si gaar ah dadka jooga garoonka tagi kara Uganda ku nool Soomaalida ahi waa dad aad u fara badan waxaan rajaynayaa kaalmada ay ka soo qaateen kulamada hore ee Soomaaliya soo ciyaartay ay saxaabada u tumayeen inay galabta si laba jibaaraan aysan ciyaartooyda u muujiyaan galabta inay Eritrea ka gudbi karaan saxaabadana ay ku dhiirigeliyaan garoonka ay yimaadeen calankana ay hore u soo qaataan oo calanka garoonka qaybta Soomaaliya ka leedahay taageerayaashu laga dalbeemo in la dheelaa finaal Champions League amal saxaabada sida loo ruuxayo oo kale waa mahadsanyahay kaas wuxuu Ahmed Axmed Siyaad oo kamida dadka aadka u falanqeeya ciyaaraha gudaha iyo sidoo kale dibadda oo nala falanqeynayay kulanka adag u dhaxeeya xulalka Soomaaliya iyo Eritrea oo aad xasaasi u ah anagoo Soomaaliya u rajaynayna guul muhiim ah gaarno ciyaarahanadana u baahan yihiin garab istaag in la dhiirigeliyo si guul ay u soo hoyaan guushana dhamaantiin ay naga wada dhaxaysaa marka adduunka media adoo eebidmo waxay idin soo gudbi doonaan natiijada qaabkay ku dhamaato anagoo mar waliba saan diiradda u saari doono kulamada xasaasiga ah ciyaaraha gudaha iyo dibadda intaba inaan falanqeyno oo aan ka hadalno anagoo asxaabku casuumi doono aadna u yaqaan ciyaaraha kana faalooda marka falanqeyntii halkaas ay nooga egtahay dhamaantiinba waxaynu rajaynaynaa Soomaaliya guul gaarto walibana aan dhinacooda dhulka aan dhigno xulka Eritrea oo aan wajihi doono haduu eebidmo marka asxaabta inta ku cusub channelka inay rukuntaan ayaan ka dalbanaynaa oo ay subscribe inoo saaraan asxaabtana ila wadaagaan waa mahadsantiin nabadgelyo